asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba daawadayaal, kuu soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno atoorayaasha ugu caansan bollywoodka. barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa atooraha Hrithik Roshan. haddaba Hrithik Roshan maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa oo kooban? halkan ka daawo. intaynaanu muuqaalka bilaabin, fadlan waxaanu kaa codsanaynaa sabscribe inoo saar channelkeena, sidoo kale like inagu dhiirigeli. like-tu waxay naga caawinaysaa inuu muuqaalku gaadho dad aada u tiro badan. haddii aynu ugu soo noqonno muuqaalkeena maanta, waxa uu tilmaamayaa taariikhda Hrithik Roshan. Hrithik Roshan waxa uu dhashay 10kii January 1974, waxaana atoore u dhashay dalka India. waxaana uu nasabsadaa aabbe Indiana iyo hooyo Indiana, waxaana aabbahaasi lagu magacaabaa Rakesh Roshan, waana filim sameeye ka shaqeeya shirkadda Bollywoodka. sidoo kale waxaa lagu magacaabaa hooyada dhashay Hrithik, Pinky Roshan, waana mid ka soo muuqday filimaan badan oo ay soo saartay shirkadda Bollywoodka ee dalka India. hase ahaatee waxa uu leeyahay xirfad qoobka ciyaareed oo aada u tayeysan, waxaana lagu magacaabaa boqorka qoobka ciyaarka ee dalka India, inkastoo uu tartan culus kala dhexeeyo dhigiisa Tiger Shroff, balse taasi marnaba kamaysan dhigin in xirfadiisu hoos u dhac uu ku yimaado. waana mid ka mid a atoorayaasha ugu mushaharka badan dalka India. sidoo kale waxa uu ku guulaystay abaalmarino badan, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta Filmfare Award atooraha ugu wanaagsan oo loo garan og yahay Best Actor. ha yeeshee waxa uu ka mid yahay atoorayaasha ugu caansan dalka India, waxaana uu si joogto ah ula shaqaynayay aabihiis, wuxuuna ka soo muuqday muuqaalo kooban isagoo jiraa ilmo yar ah ilaa iyo 1980kii. kadib waxa uu caawiye ka noqday 4 filim oo uu aabihii lahaa. sidaa darteed sanadkii 2000 waxa uu soo saaray filimkii Kahona Bayara, waxaana filimkaasi qoraalkiisa lahaa iyo agaasimidiisa Rakesh Roshan, waa aabbaha dhalay Hrithik Roshan. oo ku darso waxaa filimkaasi atoore ka ahaa Hrithik Roshan, wuxuuna ku guulaystay abaalmarino dhowra. isla sanadkii xigay waxa uu soo saaray filimkii la magac baxay Kabhi Khushi, waxaana filimkaasi jilistiisa ka qayb qaatay xidigaha Bollywoodka kuwooda ugu caansan oo ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan iyo Kareena Kapoor. inkastoo uu soo saaray filimaan liita oo aanan noqon kuwa qarxa, balse taasi marnaba kama yeelin in sumcadiisu ku timaado hoos u dhaca. halka sanadkii 2006 uu soo saaray filimkiisii lagu magacaabayay Krish. isla sanadkii 2006 waxa uu soo saaray filimkiisii Dom 2. hase ahaatee 2010kii waxa uu soo saaray filimkii Guzaarish, waxaana sanadkii 2012kii uu soo saaray filimkii Agnibas, halka sanadkii 2013 lasoo fasaxay qaybtii saddexaad ee filimka Krish. 2014 waxaa la soo daayay filimkiisii Bangi Bangi. si kastaba ahaatee waxaa sanadkii 2019 uu ooda ka soo qaaday filimkiisii Super Teddy. isla sanadkaasi 2019 waxa uu faraha ka soo qaaday oo filimkii la magac baxay Fanny Kapoor. filimkaasi oo uu jilistiisa kala qayb qaadanayay atooraha caanka ee Tiger Shroff. Hrithik Roshan waxa uu guursaday isagoo 14 sano jir ah, waxaana u dhaxday haweeneyda lagu magacaabo Suzanne Khan oo ah gabadh u dhalatay dalka India ee uu asal ahaan ka soo jeedo Hrithik Roshan, waana gabadh nashqadaysa dharka. Hrithik Roshan waa aabe haysta 2 caruur ah oo ay labaduba yihiin wiilal, waxaana uu la dhashay gabadha lagu magacaabo Sunaina Roshan, waana gabadha isaga ka weyn. Hrithik Roshan waa atooraha keliya ee leh 2 suul, weliba gacanta midig. barnaamijka aynu ku eegayna taariikhda kooban ee Hrithik Roshan intaas ayuu ku eg yahay. haddaba haddii aad jeceshahay in barnaamijka lagu soo qaato atooraha ama atariisada adigu aad taageerto, fadlan commentiga noogu reeba.
barnaamijkanina waxaa soo saaray islamarkaasina halkan inagala socodsiinayay anigoo Maxamed Jeeka. barnaamijkan barnaamij xiga inta aynu ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.